السلام عليكم وعليكم السلام يا جماعة ومانتا iyo cashirkeedii saddexaad kaasoo aynu ku dhigan doono maanta basics yar ama qaybaha suuqa uu kala qaybsamo qaybahaasoo mostly kala ah qaybo kala duwan haddii aad taqaanay forex ama wax la yiraahdo isku beddelka lacagaha waxaa jira suuqyo kale oo ka duwan kuwaasaynu isla fahmi doonaa si aynu kuwaas uga fahno maanta waxaan faa'iidaysanaynaa ama aynu fahmaynaa basically waxyaabaha suuqa uu kala qaybsamo inta aynaan u gudbin suuqyadani noocyada ay yihiin iyo sida ay u shaqeeyaan so maanta cashirkeenu ku noqon doonaa qaybaha suuqa soo koobaya fadlan fiidiyoyada ku codbashada si aad ugu fahantaan si fiican aad ugu fahantaan waxa su'aalaha aad qabtaanna telegram baa jira telegramkeena kala soo wadaagi doontaan videoskana youtube-ka kaga codbashada sidaas ayaanan u samaynay channelka subscribe de channelskana ku jiid casharada dambe iyo wixii information ahba aad xagga ugala socon karto markay noqoto gooda traders dhaqankeena waa bilaaban yahay maanta waxaynu fahmaynaa waxyaabaha suuqa uu kala qaybsamo qaybta koowaad waxaa la yidhahdaa forex ama waa maxay forex su'aalaha aynu fahmi doono maanta waxaa ka mid ah forex muxuu yahay okay forex muxuu yahay broker muxuu yahay binary iyo digital waxaa la yidhahdaa maxay yihiin binary and digital options maxay yihiin sidoo kale muxuu yahay cryptocurrencies waxa la yiraahdo sidoo kalena muxuu yahay stocks okay waxaan fahmi doonaa basically intaasaan fahmi doonaa waa maxay binary options waa maxay cryptocurrencies waa maxay broker waa maxay forex waa maxay stocks okay aan ku bilaabay foreign exchange ama forex suuqa la yiraahdo ayaan ku bilaabayaa foreign exchange waa suuq ama waxa weeye waa suuq la yiraahdo isku beddelka lacagaha qalaad hore idinku soo sheegay isku beddelka lacagaha qalaad cashirkii ka horreeyay wuxuu ku saabsanaa forex walow aynaan ka trade garin doonin forex oo keliya waxaan idinku soo dhigay cashirka ugu horreeya ama topic idinkula dhigay muxuu yahay sababaha aad u shaqayn doonto ama internet so mostly maadaama oo forex loo badan yahay ama aad loo wada yaqaano forex buu ahaa cashirka ugu horreeya si aad u fahantaan basic ama wax ku kooban suuqyada so waxaynu baran doonaa foreign exchange waa wax mar walba lacag iskula socda muxuu yahay lacagta la yiraahdo euro iyo USD baa isla socda mar walba waa lacag ku lamaan so euro USD ba maanta isla socda waxa isla socda Australian dollar iyo Japan yen oo kamid ah lacagaha adduunka ugu waaweyn waxa isla socda USD iyo Canadian dollar ama Canadian dollar iyo USD Australian dollar iyo USD baa isla socon kara waxa isla socon kara JPP oo Great Britain pound ah iyo USD so forex waxaynu ka fahnay inuu yahay lacag ku lamaan mar walba so haddii aad ka ganacsanayso forex maxaad u baahan tahay lacag baad u baahan tahay si aad lacag kale ugu iibsato so mar walba forex waa lacag lagu iibsanayo waxaasoo dhan yaa qabanaya waxaa qaban doonaa platform ama software kugu caawin doona inaad ka ganacsato waxyaabaha adigu laakiin faham okay waxaa ku xiga forex waxaa ku xiga su'aasha xigtoo ahayd broker muxuu yahay brokerku waa dealer waa dilaal lacagtaadi aad u dhiibanayso waa platform hadda berigii hore wuxuu ahaan jiray brokerku nin intuu ku soo waco ku dhacda shirkad heblaaya lacag la gashanaya miyaad gashanaysaa yes baad odhanaysaa waan gashanaya imisaad gashanaysaa $1 2,000 share baad ku yeelanaysaa si uu shirkadaasi halka u socoto kugu analyze gareeyo kugu socdo maanta laakiin waa laga gudbay technology waa la socdo adiga naftaada u ganacsanaya so si aad naftaada ugu ganacsato waxaad u baahan tahay brokerkan muxuu yahay waa dilaal waa platform liisan ama sharci u haysta inuu suuqan kaa qayb geliyo adiga oo ah retail ama ganacsade iskii u ganacsanaya waxa weeyaan waa platform ama waa brokerku waa softwareka aad u isticmaali doonto trade-ka suuqyadan si aad uga ganacsato suuqyadan soo socda forex hadduu kuwan kale ayaan kuu sheegay yahay si aad uga ganacsato broker baad u baahan platform baad u baahan platformkan isticmaalo aniga IP option baa la yidhahdaa idinku kuwaad doontaan ama aad isticmaali doontaan laakiin policy-ga guud inaad fahantaan kadib kaan ku trade gareeyaad uga trade okay waa meeshii aad lacagta dhiganaysa brokerku waana inaad xafidsanaato wuxuu yahay macnaha aad ogaato fahanto basically dadka waxaan u sheegayaa ku cusub suuqyadan aanan horena u arag mar walbana aqoon adoonan kororsan ha isku gelin lacagna ha gashan aniga cashiradaan dhigaya ina kugulama talinayn inaad marnaba investment samayso marnaba kugulama talinayn inaad investment samayso ilaa aan ka hubiyo aan teamkayga
aan niga verify gareeya anigu waa haddii aad rabto inaad si fiican oo sharaf leh u shaqaysato aanan ku jirin madow aanan ku jirin khasaaro badan khasaaro u jiraya laakiin khasaaraha ugu yaraan doono aanan ku jirin maxaan ku idhahdaa moral jab iyo waxyaabo kuu keeni doona dhaawac xagga ganacsiga okay sidoo kale brokerku waa meeshaad lacagtaada dhigan doonto taasoo ah meeshaad ku trade garaynayso maxaad ku trade garaynaysaa ku trade garaynaysaa brokerkii baan lacag dhigtay $300 $200 baan dhigtay suuqii buu iga qayb geliyey suuqii baan ka qayb galay waxaan odhanayaa $10 ii geli trade-ka $1 ii geli point maxaa la dhahaa $2 ii geli $2.5 ii geli investment-kaagii waa meeshaad dhiganayso okay su-aashii xigtay baynu haddaba u gudbaynaa oo ahayd binary options maxay yihiin binary options waxa la yidhaahdaa ama loo yaqaana binary and digital options loo yaqaano waa quite likely as same as forex bay la mid yihiin marka dhaqan la eego dabeecad la eego suuqa forex baa laga qayb galaa laakiinse iyagu waxay la socdaan oo dheer yihiin stocks shirkadihii stockski iyo waxyaabahaas oo dhan ayaad kaga qayb gali kartaa markay binary and digital options yihiin okay si aad uga qayb qaadato waxaad u baahan doontaa inaad ogaato binary and digital optionski iyo forex waxay ku kala duwan yihiin casirka xiga ayaana noqon doona waxay ku kala duwan yihiin aad ku fahmi doonto in hadda halkan waxaan ugu talagalay inaad fahamto suuqyada noocyadiisa iyo cashirkan oo ah in suuqyada uun aad fahanto wax kale inaad fahanto lama rabo okay binary and digital options waa quite likely as same as forex mar walba waxay la mid yihiin ama la dabeecadeeyeen forex-ka waxa la yidhaahdo okay forex haddaan doono inaan maanta ka trade gareeyo maxaan samaynayaa platform baan galaya binary haddaan ka trade gareynaya digital optionsna platform baan u baahanaya same marka haddii aad MetaTrader 4 ama MT4 aad taqaanay platformo ka duwan baa jira kuwo kale oo waxa jira lagu ganacsado ama waxyaabo badan oo kale ka duwan baa jira si looga ganacsado okay sidoo kale stocks bay leeyihiin so suuqii aan idiin sheegay stockska iyo forex-ki ayaa binary and digital optionska meel lagu wada kulminaya ka ganacsanaysa maxaa ka mid ah aan tuso example yar oo ka mid ah binary and digital optionska waxay yihiin hadda forex baan furaya suuqa forex waa kan aad arkaysaa forex keligii inuu yahay forex waa kuwan assetskiisu way xidhan yihiin maanta ay sabti axad tahay way xidhan yihiin 5 cishay furan waad fahmi doontaa basically waxyaabaha ay ka hadlayaan okay binary and digital options maxay yihiin waa kuwan binary and digital options waa lacagtii forex lacag euro USD euro JPP USD waxaasoo dhan waad trade garanaysaa sidoo kale waxaa jira iminka way xidhan yihiin stockskii aan idiin sheegay oo ah waxyaabaha loo yaqaano shirkadaha waaweyn hadday tahay shirkad haddii ay tahay maxaan ku idhahdaa stock waa kuwan Snapchat baa ku jira waxaa ku jira McDonald Tesla oo shirkad baabuurta samaysa waaba sida idiin sheegay ama aad noqon doonto inaad ka ganacsan karto so stockskii wixii ayaa binary ku jira laakiin policy-ga lagu trade gareynayaa uu ka duwan yahay policy-yada loo yaqaano forex-ka waanad fahmi doontaa xagga dambe aad ku fahmi doontaa waxaad ku trade gareynaysaa stockskii iyo wixii under the same policy sidii aad u trade gareynaysaa lacag ku lamaan lacagta up tagaysa lacag down tagaysa waxaas umaad ku trade gareynaysaa laakiin in a limited time and fixed profit limited time iyo fixed profit fixed iyo limited time oo kooban ayaa trade gareynaysaa halka forex aynu cashirada ku qaadan doono ama aynu ogaan doono forex iyo waxay ku kala duwan yihiin baynu ku ogaan doonaa videoga dambe ee next video ayaana kaga hadli doonaa waxay ku kala duwan yihiin binary iyo waxa la yiraahdo forex-ka kaliya okay su'aashayni xigtay baan u gudbayaa jawaabteedii cryptocurrencies maxay yihiin cryptocurrencies waa lacagaha electronic ah ee loo yaqaano crypto waa lacagtii caadiga la yaqaano electronic laga dhigay waa halka mustaqbalka lacagaha ay u socdaan lacag haddaad taqaano adduunku way iska bedelaysaa waxayna isku bedelaysaa maxaan ku idhahdayay electronic waxa soo socota 10 sano ee soo socda in qofka lacag caadi intuu qaato uu la tago bangiga ama uu yiraahdo lacag caadi adigoo milyaneer oo ciyaartoy ama fanaan caan oo actorka yahay markiis isagoo lacag caadi ah wata ama boorso lacag guriga u tago bangi bay wax walba u yaalaan cryptocurrency waa language-ka la dambe ee loo gudbi doono so maxaa lagu tusaya card baa lagu siiyay bank card baa lagu siiyay check baa lagu siiyay maxaa laga qarinayaa in lacagta caadiga ah aad isticmaasho
because of waa old school waa laga gudbaya so waxa soo socotay in dambiga ay noqoto maanta dad bankigaaga inta tagto aad tiraado 5 milyan ma la baxaya adigoo billionaire ah hada 5 milyan ma la baxaya boosay ugu guran su'aalo badan baa lagu weydiinaya in lacagta marinaysa macad baa ku aftuu cid laga aftuubay yani adaa lagu dareensiinaya lacagtaadii inaad caadi u qaadato si aad electronic so psychologically cryptocurrency waa dunka loo wareegi doonaa waa lacagaha dunka ku wareegi doono believe me anigoo in badan baa ku jira hadda markaan aad u tirsayna waxaan ogaaday inay lacagahan mustaqbalka bedeli doonaan okay bitcoin baa jira bitcoinku lacag qiimo badan ma ahayn sanadadii lasoo dhaafay markuu soo baxay nin jabaanisa soo saaray lama yaqaano ninkii soo saaray laakiin waxay noqotay dawlad gaaro oo lacag gaara leh so ilaa imika lama hayo originally halkay ka timid ay ninkii iska lahaa maadaama ay lacagtii noqotay lacag xawli ku socota suuqiina lagama saari karo so waxay noqotay lacag 100% sharci ah dawlad gaara leh aanan loo dhawaan karin oo iyadu yani iskeed isku wada so bitcoin maanta wuxuu dhigmaa halka bitcoin anu waxaan leeyahay hal bitcoin oo ah 0.001 oo u dhigma lacag gaaraysa $800 haddii aan qaybiyo markaan iibsanayna boqolkiiba sidee baa laga yaabaa hal kale oo waxaan leeyahay kun isna u dhigma so lacagtaas way isma bedelaysaa anigu time intay ii oosho ma joogayo lacagtaas way shaqaynaysaa suuqay ka qaadanaysaa qayb ka qaadanaysaa waxbay kala sarrifaysaa qaar baan ka iibinayaa haddana waan iibsanayaa hadda halka bitcoin iskiiya dhamayska tiran wuxuu u dhigmaa lacag loo dhigo $13,000 Mareykanka so maxaad oran kartaa $13,000 Mareykanka lacag u dhigmaysaa ma jirto dahabkana inta gaari oo halka kira ama ku xisaabinaysa aanad oran karin intaas qiyaastii waad garan kartaa litecoin baa jira ama wax la yiraahdo maxaan ku dhahaa bitcoin cash waxyaabahaas oo dhan baa jira iyaguna waa kuwan haddii aan idin la wadaago basically waxay yihiin okay bitcoin baa idin la wadaagayaa ama wuxuu yahay electronic currencies ka waxaan la yiraahdo electronic currencies waxa weeye cryptocurrencies oo so bitcoin cash waa kan 100% baad ku xisaabinaysaa 0. waxaad gashato kor baa u soconaysaa limited time bay socon doontaa aad bay u socon doontaa BTC waa ka bitcoin Tron waxa jira Binance coin baa jira bitcoin cash baa jira waxa la yiraahdo waxa jira maxaan ku dhahaa Ripple baa jira Zcash baa jira so waxyaabahaas oo dhan ayaa la yiraahdaa electronic currencies ama maxaan ku dhahdaa cryptocurrencies okay waa specific amount of currencies halka aad suuqyada kale kaga ganacsanaysa lacag kale ku lamaan tani iskeed baad u ganacsanaysaa bitcoin keligii baad ganacsanaysaa keligii baad investment gashanaysaa keligii buu kor soconaya keligii buu hoos soconaya okay so taas bay ayaa la yiraahdaa bitcoin baa la yiraahdaa waxa weeye amount-ka ama xaddiga lacageed ku ganacsanayso suuqa usually kaasoo isbedela all the types of stocks macnaha wuxuu isku bedelaa exchange-ka ama sarifka maalmihii iyo saameynta uu suuqu sameeyo ayuu electronic currencies isku bedelaa okay stocks baa jira iyaguna okay waxaan soconay stocks ama waxa loo yaqaano corporations waaweyn stocks waxa weeye waa main corporations wax la yiraahdo ama shirkadaha waaweyn ee caalamka waxyaabaha saameynta badan ka geysta kuwaasoo ah suuqyadan waxyaabo badan bay ka geystaan haddii forex tahay waxyaabo badan bay ka bedelaan dawlad ahaan iyo dhaqaale ahaanba haddii ay tahay maxaan ku dhahdaa suuqyadana dhaqaalaha ugu badan xagga isku dhaaf stocks baa qayb ka qaata stocksku maxay yihiin waa Nike oo shirkad for example Nike waa dharkay samaysaa waxay samaysaa alaabaha maxaa la waxyaabaha markada brandka la yiraahdo okay Facebook waa isticmaashaa maalin walba gashaa iyadu waa stock waxa la yiraahdaa Snapchat waa stock McDonald's waa stock waxaasoo dhan iyo all kind of brands macnaha brand walba adduunka jira waa stock so stock si aad uga qeyb macnaha aad u fahanto macnaha basicka suuqyadan si aad uga ganacsato waa inaad fahantaa shanta marxalada ama marxaladaha uu maro basically si aad u fahanto okay stocks kaasi waxyaabo badan bay u qaybsami karaan waxay noqon karaan shirkado kale oo ka badan bay inta aad ogtahay waxay noqon karaan waa stocks waxay noqon karaan Zoom videoan hadda idinkala hadlay noqon karaan aan idinkaga jiro ama videoga ku duubo mostly waxay noqon karaan shirkadda la yiraahdo Verizon oo ah shirkad macnaha samaysa alaabaha elektrooniga Volkswagen oo baabuurtii bay noqon kartaa Vodafone Group Visa oo T-Bank iyo sameynaysa maxaa la yiraahdaa kaararka sameynaysa bay noqon kartaa
waxyaabahaas oo dhan baa stocks loo odhan karaa sidoo kale stocks waxaa loo odhan karaa ama loo yaqaanaa Uber Technology, Twitter, Tesco ama T-Mobile. Okay, stockska waxyaabaha kamid ah waxaanu garanay shirkado waaweyn corporation Twitter Inc baa kamid noqon karta oo ah shirkad macnaha isgaarsiinta ah hadday siyaasiyiin noqotay haddii kaleba. Okay, waxaa jirta Tesla oo samaysa baabuurta electroniga laguna gudbi doono mustaqbalka baabuurta ku dambeyn doono. waxaan oo dhan waxaa la yidhaahdaa stock ama waa stocks waa waxyaabaha suuqa ka geysan doona kaalmaha ugu muhiimsan. sidoo kale Snapchat baad arkaysaa, social media caadigiiba iyagu ku jira, PayPal wax la yidhaahdo. waxaan oo dhan waxay ku jiraan maxaan ku idhahdaa Snapchat, Nike waatan, Netflix filmaday deysaa, waxa weeyaan Microsoft waa taqaanaan, gebi waa stock. So stock market waxaynu isla garanay inay tahay stock marketku qaybta suuqa shirkadaha waaweyn kuwaasoo ka qayb qaata suuqyadan si looga ganacsado iyo si aad u maaragtay uga samayn karto lacag. So maanta waxaynu fahanay basic ah waa maxay forex, waynu niri waa isku beddelka lacagaha qalaad, waa maxay broker, waa meeshaad lacagtaada u dhiiban doonto ama platform ha ahaado ama software kale oo aad adigu diyaar u tahay lacagtaasi aad u dhigato ha noqdo. Binary and digital options kuwaas wax la mid ah forex-ka laakiin same policy iyo different maxaan ku idhahdaa waxay ku kala shaqeeyaan policy laakiin same circumstances wax la yidhahdo ama duruufo isku gaara ay ku wada shaqeeyaan. Cryptocurrencies waxa la yidhahdo waa lacagaha electroniga oo idin sheegay lacag ay ka mid tahay Bitcoin oo maanta u dhiganta $12,000 Mareykanka ah ugu ahna lacag jirta lacagta ugu qaalisan. sidoo kale stocks baynu fahanay. So sessionka maanta intaas ayuu ka ekaan doonaa videogan basically waxyaabahaas ku saabsanaan doonaa videoyada dambe iyo YouTube-ka si aad ugala socotaan insha Allah subscribe sidoo kalena kala soco channelska taaba calaamadda linka si aad ula socoto video walba soo upload gareyno oo ku saabsan ganacsiyada noocan. Waan salaamay.